dhegaysta ama daawade ku soo dhawow qaybta sideedaad sheekada la magac baxday qaladkii murugada badnaa. sheekadan waa qiso dhabow dhacday waxa ay qaybtii toddobaad ay noo joogtay aabbaha Shamso oo yiri gabadheeda arooskaaga waa uu dhacayaa martidan aniga ayaa soo dhaweynayo. Shamso ayaa waxay ku wargelisay Xamsa in raalli aabba uu ka yahay arrintan waxaana Xamse uu yiri insha Allah waan soo soconnaa. sida ballanta ay ahayd waxaa la gaaray maalinkii Khamiista ahayd waxaana xaafadda Shamso yimid ergadii ka socotay Xamsa isagana muusan ka reebaneen oo Xamse waa uu la socday. waxaa xaafadda ku soo dhaweeyay oo marti sooray reerkii Shamso inkastoo arooska dhacaya aysan ku qanacsaneen Shamso hooyadeeda. aabbaha Shamso ayaa u arka gabadhiisa oo si sharaf leh loogu soo doonanayo inuusan diidi karin maadaama dadka soo doonanaya ay yihiin dad si weyn loogu garanayo xaafadda. odayaashii ka socday dhinaca Xamse ayaa waxay u sheegeen reerka Shamso inay doonayaan in gabadha la siiyo si ay ugu guuriyaan wiilkooda. waxaa lagu ballamay in maalinta Axadda dib la isugu soo laabto si bixinta gabadha ay kaga warqabaan abtiyaasha iyo sidoo kale adeerada Shamso. gogosha maalinkaas sida ayay ku soo ilaatay inkastoo war wanaagsan oo natiijo leh lagu kala tegay. inta laga gaaraya maalinka Axadda waxaa xiriirkooda sida caadiga ahayd u sii watay Shamso iyo sidoo kale Xamsa. waxaa la gaaray maalintii Axadda ahayd waxaana guriga mar kale yimid reerkii ka socda xagga Xamsa waxaana sidoo kale maalinka guriga joogay waalidkii sidoo kale qaraabada Shamso. inkastoo hooyada Shamso dhashay ay dhaliilsaneyd bixinta gabadheeda balse ugu dambeyntii odayaasha labada dhinac ayaa ku heshiiyey qaasatan ergadii matalaysa Shamso in la baxsho gabadha. Xamse iyo Shamso aad ayay ugu farxeen maadaama tiir ka mid ah tiirarkii cuslaa ay ka gudbeen. waxaa maalmo kadib dhacay arooskooda oo weliba u dhacay si qurux badan waxaana Xamse uu dareemayay farxad badan maadaama uu hantiyey gabadhii uu jeclaa. markaan Xamse iyo sidoo kale Shamso waxay guda galayaan nolol wehel ku dhisan. waxay guri ka kireysteen isla xaafadda meel aan ka fogeyn waxaana arooskooda ka soo qayb galay dad badan. inkastoo Xamse uusan shaqo xoog leh xilligaas uusan haysan balse aroos intuu awoodo ayuu u dhigay Shamso si quruxda iyo farxadda qoyska nuur badan ay u sii yeelato. in muddaha markay wada noolaayeen isla markaana ay dhex taaleen nolol qurux badan waxaa dhaqaalaha ay biilanayeen labadooda uu noqday mid hoos u dhaca. reerka waxaa ku soo biiray owlaad laba ah oo ay wada dhaleen Shamso iyo sidoo kale Xamsa. inkastoo mataana aysan ahayn oo sannado carruurtu ay u dhexaysay balse shaqo xumada ka jirta magaalada waxay keentay in Xamse uu ku fikiro safar tahriib ah. marar badan oo Shamso uu la tashaday waxa uu bilaabay Xamse safar tahriib ah isagoo weliba doonayay inuu gaaro wadamada reer Yurub. Xamse waxa uu ogaa inaan si sahal ah loogu tagi karin Yurub isla markaana safar adag uu sugayo balse dhaqaale yar uu haystay ayuu isku toosistay waana uu dhaqaaqay. wuxuu socdaba waxa uu tegay waddanka Suudaan isagoo kaga sii gudbay dhanka iyo saxaraha u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya. waxay socdaanba isaga iyo koox dad ah oo xilligaas uu hel u ahaa waxay gacanta u galeen Magafe. inkastoo Xamse inta uu safarka u ahaa uu soo wacay reerkiisa laakiinse markaan koox cadow ah ayuu gacanta u galay. badbaadiye waa Allah. ugu dambeyntii Xamse waa uu ka baxay gacantii Magafe inkastoo dhaqaale badan uu ku baxay sii deysmadiisa. markaan waxa uu cagta saaray Tripoli waxaana isagoo isla hadlaya uu yiri ilaahow inta hartay ii fududay. waxaan soo maray marxalado kala duwan oo xanuun badan waxaana dareemayaa weli in safarka uusan dhoweyn. isla hadalkaa oo kooban Xamse markuu isla wadaagay waxa uu sii watay safarkiisii. Shamse iyo laba carruur oo ay haysato waxay markaan dulsaar ku yihiin xaafadda hooyadeed inkastoo maamada marka hore guurka gabadheeda aysan ku faraxsaneen. Xamse markaan waxa uu raacayaa doonka ambabaxaysa magaalada Tripoli si uu u gaaro waddanka Talyaaniga. waa safar dhinaca badda waxaana uu wataa safarkan khatartiisa inkastoo alla uu tala saartay markiisa horeba. Shamse oo ka murugaysan safarka gacaliyaheeda waxa u soo dhacay taleefan muddo kadib inkastoo lambarka uu ahaa lambar Yurub ah balse waa ay qabatay. hello waa qofma.
gacaliso waa Xamsa, alxamdulillaah waan nabad tegay waddanka Talyaaniga, safar adag ayaan maray, balse Alla waa uu nabadgeeyey, aniga ayaanu ku soo wacaya insha Allah. Intaa markii uu Xamse yiri waxa uu jaray taleefankii, balse Shamse markaan farxad ayay muujinaysaa, iyadoo farxadda ay ka tambadisay ayaa waxa ay tiri waxaan ka gudubnay mid ka mid ah imtixaanadii nolosheenna ku hareereysnaa, waxaana u gudubnay waddo wanaagsan oo aan isdhihi karno waad ku guulaysan kartaan, waa Alle mahadii. Shamse ayaa u tagtay hooyadeeda si ay ugu sheegto akhbaarta Xamsa uu ku tagay Talyaaniga, laakiin markii ay u sheegtay maamada waxaa jawaab ay kaga dhigtay hadda muu ku soo biilahay ninkaaga. Inkastoo Shamse ay samir badneed, balse Xamse ayaa bilaabay in Shamse uu soo waco, maadaama markaan uu helay waqti iyo sidoo kale taleefan uu ku soo wici kara gacalisadiisa. intaa haynoo joogto daawade ama dhegaysa qaybtii 8aad sheekadii la magac baxday qaladkii murugada badnaa. inta qaybta xigta aynu ku wada kulmi doono sida ay nabadgelyo.